بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan joognaa caasimadii labaad ee reer SSC anigoo ah Farxiye Axmed Cali kana soo kicitimay magaalada Laascaanood magaalada madaxda Khaatumo SSC joogana caasimadii labaad ee SSC magaalada Buuhoodle gobolka Cayn. halkan waxaan ka salaabayaa dhammaan harti weyne iyo dhammaan reer SSC oo dhan iyo harti dhamaantii iyo reer daarood dhamaantiiba waa salaamaya. salaanka bacdi anagu waxaan ka soo tagnay meesha la yiraahdo Laascaanood waxaan ahayn 11 gabdhood oo Laascaanood ka yimid oo soo baxay wacyiga iyo dagaalada iyo ciidamada waan soo maray waa u tagnay waa la kulanay ka bacdi waxaan soo dhaadhacnay Buuhoodle aan joognaa hadeerto. ilaahay waxaan ka baryayaa colaada ilaahay inuu naga jabiyo. waxaa u joognaa xaaladda colaadeed ee meesha joogta. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa cudud iyo ciidanba ilaahay inuu noo barakeeyo. insha Allah waxaan ku boorinayaa harti weyne reer isaaq waxay yiraahdaan daarooda dhan baa meesha joogan ku kala maqnayn. daarood hadduu meesha soo gaaro waxaan u malaynayaa si kale noqon lahayd, laakiin hadda waxa meesha ku dagaalamaya waa reer SSC iyo isaaq weey. waxaan u baaqayaa harti weyne, waxaan u baaqayaa daarood weyne, waxaan idhi isaaq wuxuu yiri yaa irireey anna waxaan leeyahay daaroodoo waad aragtaan. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay subxaanahu wa ta'aala cududa iyo ciidankaba kor noogu qaado. ilaahay waxaan uga mahadcelinaynaa intii noo soo hiilisay hore harti weyne iyo inta noo soo socota iyo inta noo iman doonta iyo inta noo joogtaba. ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu mideeyo cududooda iyo ciidankoodaba insha Allah biidnillaahi kariim. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa anagu waa jecelahay nabadgeliyo, waayo waxaan u jecelahay aakhira ahaan iyo adduun ahaanba waxaan u jecelahay inaan dhiig islaan isku daadan, laakiin reer isaaq waa diideen. ninka tolla ayay leh ee ka soo ordaya qorilugud iyo anagu aan awal iska lahayn xuduudkayaga aan uga nimid qorilugud baanu lahayn, Cayna baanu lahayn, Burcaanu lahayn, Gaatabaanu lahayn. intaaba waxaan uga tagnay Soomaalinimo iyo nabad jacayl nala kama qaadin, cidina naga maqanin, meeshiisa laga ma qaadi karo. marka haddana waxaan isii marhaday bina ka dhisteen ay degeen waqtiguna waqti dheer yahay daad iska badayseen. ninka la jooga dila ee tolla ayay u soole Buuhoodle ee tolla ayay u soole ilaa Garoowe ee tolla ayay u soole ilaa Laascaanood. anagu waa ka yaabana isaaq ilaahay aqliga ku soo celiyo iimaanka labada waa ka maqan yihiin. anagu cidna ku duulmayno, cidna dulmiyimayno, ma jeclin xataa nin dhaawac inaanu dilo, ma jeclin maxbuus inaanu dilo, ma jeclo xataa 400 nin baanu haynaa oo ku dambiilayaashu waaweynaa ku jiraan. haddaana ilaahay ka baqayno cabsi ilaahay aan kaga hakanina waa dili lahayn, laakiin anaga ta ilaahay baa celisa oo tabilaadanimadan celisa. laakiin dadan way soo dhowrayn oo tarbi celinaynin oo tabilaadnimadu celinaynin oo cabsida ilaahay celinaynin. waxa weeye haddaad nabad diideen soo socdaan in dhulka wax kama yaaliin. sallam anigoo ah Cibaade Axmed halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan reer SSC maamulka SSC Khaatumo iyo dhammaan harti daarood meel kasta ay joogaan ummadda Soomaaliyeed. waxaan leeyahay inta kadib Soomaali waxa horta afarta kirjo Soomaaliya daba ka qiiqaya dagaal ka socda meel kasta waa la isku leeyahay gobolada dhexe gobolka aan joogno. waxa weeye wax ilaahay abuurtay oo Soomaaliya oo oranaya dagaalka hal la joojiyo oo labadii reer islaayeen nabad ugu baaqaya ma jiraan. odayaal waaweyn oo awoowayaal oo waxaan arkaynaa waxaan nahay habar yoonis, waxaan nahay habar jeclo, dagaalkaanu galaynaa, weerar baanu qaadaynaa, kanaan samaynaynaa. waxa weeye horta odayaal baaqday baa tihiin odayaashiinaas waxaadna ogaataan in rag idinka soo horeeyo adduunka ilaahay lama arag dad waaweyn oo inay dadka noociinaas waa noocii ciidamada tuuri jiray, ciidamada kala dhex gari jiray, dadka kala celin jiray. baryahan dambe waxa lagu faanaa waan dagaalamaynaa mid la jiitiidayo mid la qaawinayo gabdhaha meedka inanka yar ee dhaawac ah ee ay dhaawac ku qaateen jiitiidaya miyaanay ogeyn in dhowr boqol halkan ku xireysan tahay oo maxaabiisa oo kuwa kale meed ah oo laga soo qaaday meesha oo dhaawaci dhulbaanta laga soo qaaday halkan yaalaan. waxa weeye oo la asturay oo la hagaajiyo si wacan loo aasay. waxa weeye dadku inuu Ilaahay ka cabsado oo la xishoodo oo waxyaabaha la sameeyo khaladaadka la iska daayo. ragga islaynaya ee aad moodo sida kubadda ciyaaraha loo daawanayo marba reer hebel baa badiyay kubadda sideedii loo ciyaarayay
in ilaahay looga cabsoodo arrimahaas oo dhan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Anigoo ah Saynab Cumar Jaamac oo ah gudidii Laascaanood oo aan u nimid dagaalka ahliga ah ee ka socda jiidaha iyo furimaha oo isaaq iyo maxay ahayd habar xabuusheed isu soo bahaysanayo annagu isuma aanan soo bahaysan laakiin isbahaysiga waa deyn weydeen oo soo bahaysanaysa annaga nina iska kiin bahaysanayn baan cudud iska kiin celinayna cudud baan iska kiin celinayna horena dalka yaga idinka kibir noogu soo weeraray cudud iyo baan iska kiin saar maantana dalka yaga waad ku soo socotaan cudud baan iska kiin celinaa kii aad naga qaadeen baan ku soo noqonayna ku tala gal reer Isaaqo waa inoo iyo awood waa hadaad nabadgelyada diidaan idina waxba ha la hadhin anana waxba la hadhimayno waa inoo iyo laba xiniyood iyo rag inaga dhaxeeya iyo labada gaatama gulba